السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب ملك سدوني دافيدا كجوكتان سو دوادا أصحابتي قيمة بدنيد ما waxaan soo qaadanaynaa dhowr qodob oo isku dhafan macnaha qiso kaliya ku wada socon mayno dhowr yacni jawaabo su'aal la soo wadiyo jawaabahooda haddii la hay'ad ka taliya sheekooyin dul marba waan samayn doonaa waxaan ka hadli doonaa shilka Shaarab Khan la sheegay inuu galay sidoo kale waxaan ka hadlaynaa Raani Muqarje iyo Akshay Kumar sababta aanay u wada shaqaynaynin ama aanay ilaa imka aanay u wada shaqayn oo aanay film isoo keenin sidoo kale waxaan ka hadlaynaa haddii ilaahay idinkeeda leeyahay Mr. Chitrachief Norway oo Raani Muqarje filmkii ay matalaysay waxaan ka hadlaynaa sidoo kale KFG iyo Salaar labada film ee holaca ah ee wadada ku soo jira asxaabta qiimo badan aan ku horeeyo horta Raani Muqarje iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay Akshay Kumar maxay ilaa iminka ilaa mid walba wuxuu ku jiraa shirkadda filmada Bollywoodka in ka badan 20 sano marka maxay tahay sababta ka dambaysa in labadan ruux ay film u wada keeni waayeen sababta ka dambaysa waa sabab aan ahayn iska caadi yani iska caadi iyo nasiib iyo lucky ayaa meesha ku jiray oo labada kala geeyay lama oran karo laakiin waxa jirtay in labadooda mid kamida uu ka kale uuna marnaba uuna jeclaysaneyn in uu la shaqeeyo halka uu ka kalena uu balan ku qaaday markii dambe uu ogaaday in qofka kale uu jir diidayo oo isna yiri markii dambe loo shaqeyn waayo way Raani hadaba weey qofta aan ka hadlayo ee ninkan odayga Akshay Kumar khilaadiyoon kii khilaadi ama Master Bond hadba ka taqaanida aki diidaneyd mar walba inay ila shaqeyso filmkii ugu horeeyay ee loo diyaariyay Akshay Kumar iyo Raani Muqarje waxa filmkii khilaadiyoonkii khilaadi waa filmkii dhamacada ahaa ee soo baxay 1996kii filmkan dabcan wuu iska cusbaa wuula isaga فيسكي هوري نولشيسا iyo waqtigiisa xoogaa way ku adkaatay inuu macna filmadiisa ay u qarxaan iyaduna way yeesay maadaama iyadu mar walba ay ka soo jeeday caa'ilad aad iyo aad sal iyo baar ku leh oo awoodna ku leh shirkadda Bollywoodka sidoo kalena aan iyada aad ugu sii adkay film kasta wanaagsan inay hesho fursado fiican ay haysatay kuna darso filmadeeduna mar walba ay ahaayeen kuwa marka iyada guuleysanaya marka ninkan way yeestay baan oran karnaa way jirdiiday way xumaysay qalbiga ay milixda ka dhigtay Akshay Kumar marka ay filmkan aragtay khilaadiyoonkii khilaadi in isagu ku jiro atoore ka yahay way diiday oo markaas booskeedii waxa lagu bedelay markii dambe Raveena Tandon markii dambe filmkaas marka 1996 waa filmkii labaad ee hadana loo diyaariyay wali isagu waa dhagdheer oo waxa mudugan haddii dhugteen waxa muusi dhaadan oo muusi joojin ee hore ayuu uga sii socday haddana waxa uu mid walba uu hayaankiisii fanka iyo aktarnimada iyo film samaynta iyo matalaadnimada uu hore ugu sii socdaba markii dambe haddana waxa loo diyaariyay labadooda inay matalaan filmkii Sangharash waa filmkii uu Santosh uu laadarka filmka dad qalka ay intiina badan ciyaal hindi ilaahayna ma cadaabay aynu niraahna filmkaasna wuxuu soo baxay 1999 marka labadooda Raani iyo Aki weeye ama Akshay Kumar ayaa filmkan loogu talagalay in ay matalaan laakiin markay aragtay gabadhani in uu Akshay Kumar ku jiro filmka oo atoore ka yahay ay diiday oo waa markii labaad ay diidayso jas xitaa qisada filmka iyadan eegin mar alla markay aragto cunsurnimo inta ka qabto mar alla markay aragto in magaca Akshay Kumar meesha ku qoran ay diidi jirtay filmada ayaa gabadhan lagu leeyahay halka cunsurnimo ay ka gaarsan ama ay ninkan jinkeeda necbaamiyaan oran karna mise qurumaheeda mise awooyaasheeda mise ruuxaanteeda necba Akshay ma aragtay inantani qaada bay oran jirtay taa filmkaas haduu noqonayo ilaa mu noqdo all time blockbuster waaye sidiiba haddana Britain marka booskeeda loogu bedelay haddana maxaa dhacday filkaasna wuxuu ahaa dabcan 99kii haddana 2002 ayaa waxa la diyaariyay haddana filmka kale wada garanaysaan waa filmka Awara Pagal Deewana waa filmka ay aktarada badan ku jiraan aktaradaas oo kala ah Akshay Kumar Sunil Shetty haddii ilaahay dekeeda leeyahay Aftab Parash Rawal ama Shadab Walad waxaan ka maqnay sidoo kale waxaan isna ka maqnay Johnny Lever ama Amanda ninka ay u naqaano xagga hablahana waxa uu helinayay Aarti Jabriya oo adrashadan kulay waa adrashad aad wada garanaysaan inkasta filmadeeda aad u yaryihiin laakiin waxaan la ilaawi karaa filmkii aan caadiga ahayn ay matashay waa filmkaas film kale ma waa filmkii ayna kul ay la matalaysay आके बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो filmkaas gabadhan waxa u taqaanaa Neena walaal Neena
waxaweeye magaceeda saxda inantan Ardi Jabria sidoo kale waxa ku jirtay Amrita Arora inanta la yiraahdo ama dirshada yar iyo sidoo kale Pretty Gianna iyada laftigeedu waxaan malay inay ku jirtay isla filimka Neena waa gabadha boosada marka dib u curyaameysa inanka jecel filimka aan ka hadlaynaa kee bari waayahay marka filimkaasna wuxuu ahaa 2002 2002 markii la yiri marka booska iyadu RT ee lamaanaha Akshay Kumar ayay gal lahayd iska daa in lamaana gashay inanta markay aragtay Akshay Kumar inuu liiska ku jiro aktarada ku jiro ayay ka booday tiri ma Akshay meesh ku jira khalaas hada filkaas oo iga dhintay aniga filkaas inanta wax alla waxa isku qabteen ma jirto waxa isku hayeen ma jirto isagu mar walba marka filimka labaad la yiraahdo Rani Baglo iska caadi waa illa ay laakiin filimkan 2002 markaas waxaan muwaaliba mise waxaan wax loo qaadan karma maalintaas ayuu isna ballan wuxuu ku qaaday filim dambe hadii loo soo bandhigo in iyada ka hor isagu ka boodayo oranayo ma Rani ba ku jirta meesha hadaba aniga shaqo kuma leh filimka ballan buu naftiisa ka qaaday oo dadkana waliba uu la horyimi in uu filim dambe uu la matalayn directorada iyo producer dhama wuxuu Rani martaba ana haba igu soo ciyaarsiina waxaan jirdiidis way ka weynta kalen marka ninkan waa nin weyn nin kore weeye nin waxaan ku yiraahdaa ilaahay ka dalay horumar sameeyay weeye nin waxaan ku xidig weyn noqday weeye 2002 markaan ka hadlayno ee quruumaheedaba diidan isna wuxuu quruuma ka weyn hadaba bas awooyaal ka weyn maanta kadibna ana ma dooniyo Rani hatta martaba wax la sheegay Aditya Jabra oo ah iyada ninkeeda in uu filim sameeyay inkasta filimka la shaacin oo filimkaasna ugu tala galay Rani Mukherjee iyo Akshay Kumar isagu dacwada iyo xanuunkaas gabadhaas ninka iyo sanifaadaas ila waxba musiita kale dadka inta badan markay filim fiican arkaan codadooda xadantoodan bay ka raacdaan waxba ma joojiyaan meesha guushooda ku jira laakiin isagu wuxuu yiri maya ila ma diikentidkii adduunka filim ugu wanaagsan Rani hab igu soo ciyaarsan marka inta maxaa dhacday in isaga ka boodo marka asxaabada bay soo wadiinaysanay khaasatan komitiyada u dibay inaan walaal qaali markaas sababta ugu muhiimsan labadan qof aan filim u wada matalin sheekada waxa soo bilaawday Rani Akshay Kumarna wuxuu yiri ninaan arsan urkooyid ugu jiray isna markii dambe wuxuu yiri aniga gabadha la ma tusi karo halkaas ayaynu ku dhaafayna horta labadoodan waxaan u gali doonaa qaybta labaad ee barnaamijkeena asxaabta qaar badan baa agtaro iyo adirshado aan ka soo sheekay inta badan weydiiyay asxaabta waxaan ka codsanayaa horta inay fiidiyoyada hoose raacaan oo marka waxay ka soo waayeen ay weydiiyaan sidoo kale aan laftigayga waa idin fududeyn doona oo linkiga ayaan idin soo dhaweyn doonaa mar walba insha Allah tacaala filimkaad soo weydiisaan marka idinkuna ha ka daalina ana insha Allah idinkama daali doona hadii la yiraahdo waa isla shaqeyn doona asxaabtada qiimo badnayd waxa ay soo weydiiyay marka qaar anigan bagaran fiidiyowga meeshuu ku jiray moogtahay marka aan wada shaqeyno hadda imika waxaan ka soo sheekiyay maalin hore waan xasuustay inaan ka soo sheekiyay Mr. Chatterjee Fish Norway oo filimkii Rani Mukherjee ay matalaysay laakiin meel uu galay garan laftigayga waa fiidiyoo baa sidan oo kale barnaamij aan sidan oo isugu soo daray ayaan ku soo qaatay oo ku dhex daray marka ana hawl bay igu noqotay inaan si baadbaado marka waxaan sir dib in yar ugu socolaado u soo koobay horta filimkan waa filim caadi ah xitaa markii dambe uu soo baxay filimka waa daawaday oo wuxuu soo baxay 17 March sanadkan ku jirno 2023 filimka horta waa filim ay maalgelisay studio la yiraahdo hadii la hay'ad kada leeyahay Z Studio iyo Amy Entertainment waa filim qisad dhab xambaarsan qisad dhab ayuu ku bees garaysan yahay qisadana waxa ka dhacday dalka Norway waxaana ku dhacday qoys marka iska muhaajirin ay oran karno ama qaxooti oo marka dalkaas deganaa oo magangeliyo weydiistay oo in badan joogay oo carro ku daldalay oo deganaa oo laakiin dhaqankooda iyo nolosha caadi qof kasta dhaqan buu leeyahay wadan kasta dhaqan buu leeyahay laakiin gurigooda dhaqankii marka Hindida ay marka ku maareeynayay Rani ay marka ku intay laakiin qisadani gabadh hore ay ku dhacday 2012 qisadan si dhab u dhacday marka aadam in yar filka dul maro waa Rani Mukherjee iyo laba carruur dhashay iyo odaygeeda ayaa gurigooda nolol odaygeedu uu shaqeeyaa meelaha badda meelaha ka shaqeeya waa shaqaale dawladeed iyaduna marka waxa weeye hooyo guri jooga carruurteeda yar ba hadaba loo soo raacay problemku carruurta yar ayuu ka dhacay carruurta yar ayay waxay ku dhaqan gelinaysay caadiga ahayd iyadoo ay lahayd dhaqankii Hindida
marka qadartu waxay ku habsamaysaa raani horta qoladan social way u yimaadaan mar walba ama xaggaas laga yiraahdo Norwegian foster care way u yimaadaan sida caadada way kormeeraan carruurta sidee loo hayaa carruurta sidee loo dhaqaaleeyaa carruurta iskuulkooda ma tagaan waa iska garanaysaa marka qurbahan joogtid carruurta waa lagu leeyahay waa lagu la dhalay adigu ma dhalin macnaha way ka dhigan tahay marka maxaa dhacaya in marka qoladaasi dhowr jeer ay arkeen in carruurta afka wax ugu gurayso in carruurta cayumanaasi wax ay ugu shidayso wax asmad xalka u marinayso sidoo kale carruurta ay saribteeda la seexanayso oo macnaha nidaamkii iyo systemkii marka dalkaas lagaga dhaqmeeyay aanay reerkan ku dhaqmayn marka maalin gabadha iyadoo ilmaheeda naas shaqsinaysa ay inta u soo tashadaan bayba ilmo yar ka qaadanayaan diwaata waalanaysa oo marada waata gaariga dib ordaysa waata ilaa iyo heer maxkamadda la gaari waata iyadu dadaal dheeriyo u galaysa carruurtiisa u soo dhaxsan halka ninkeeduna uu wax saas careless uu ka yahay uu leeyahay deganaanshiyaha sharciyadiisa uu macna muhiimada siinayo leeyahay macnaha ha warwarin way noo soo celin doonaan dib ma laha oo xitaa marka qaar nin kale lacag lagu siinayo oo ninkeedu xitaa odhanaya naagtu waa xanuunsanaysa filimka xitaa uu waan daawado filimka caadi ahayn naagtu waa huf iyo muruf iyo qarac carruurta ma haysan karto ba taagan yahay ninku nin xun kuma talaya macnaha halka hooyadu ba iyo hoog ay dareemayso ilmaheeda ay u rafaadayso dib ordaysa iska daa inuu la rafaaday xitaa xunanaya ka qaad ma hayn karta mas'uuliyadda carruurta ma hayn karaysa isagoo sharciyadiisa iyo danihiisa gaarka u fikiraya marka nin xun kuma talaya iyaduna waxa la leeyahay يعني gabadha dhan ee qaran dhan macnaa la dagaalamaysa yani Mr. Jeter G vis Norway oo dhan bay la dagaalamaysa baa lagu leeyahay Norway oo dhan ayay la dagaalamaysa oo ay doonaysa carruurteeda inay ka soo dhacsato haysato dhinaca kale filin in badan horta dadka qaar ay ka tuhunsanayeen islahayn filkaasi talow heerkii laga rabay armunu gaadeen ayaa waxa imika la sheegaya oo la cadeynaya in uu cirka marayo una halkii laga filayay meel ka wanaagsan uu gaaray filkaasi filinka Barbaas uu hogaamiyaha ka yahay ee Salaar oo waliba qayb labaadna yeelan doona sidoo kalena la kulmi doona sida ay cadeeyeen ama waxyaabo similarity meesha lagu arkay lagu sheegay goobaha iyo sidadka marka meeshaas in ay labada filin ay isla kulmi doonaan qaybta marka yaash meel ku sii socdo filinkiisa KFG iyo Salaar oo Barbaas meesha ku dagaalamay ayaa is yeeshay marka labada filin waxa la yiri waxba isku yihiin oo meel ba iska soo gali doonaan oo isku iman doonaan oo sida la saadaalinayo cross over ayaa dhici doona labada filin khuseeya dhinaca kale waxaad maqasheen Shahrukh Khan uu shil galay oo san ku jabay oo qaliin iyo operation lagu sameeyay waxa wax ka jira ma jiro waa been iyo propaganda waa run inuu Mareykan xagga Los Angeles projectkeeda mid kamida uu ku qabsan in kastaan u shaacin laakiin ninkan wax alla wuxuu qowmi jirto isagoo fid ah oo shaytaan ka caafimaad qaba ayuu dalkiisa Hindiya iyo Mumbai ku soo degay airportka sankiisa si kastoo hareera looga galay oo la eegay wax bandage iyo wax ku dhigsan iyo xariiq yar uu qowmi jirto isaga ilmihiisa yar Abraham iyo xaaskiisa Gauri Khan oo gacanta saysta ay halka ka soo degay ninkaas odagana xariiq yar uu qaban asxaabta qiimo badnayd oo ila socda si fiican like tuna lacag ma hay like ta iskala dhacay insha Allah taala dhiirigelintu asxaabtada qiimo badan waa xaqiina aad bad mahadsantiin kaliya laab wixii dalabaada insha Allah taala ila soo wadaaga hadii la raaco comment-ka hoose igu soo qora insha Allah aad bad mahadsantiin kaliya laab